dagaalada ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay dhex mareen ciidamo ka tirsan dawladda iyo kooxo ka soo horjeeda waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dadka dhaawaca soo gaara ayaa la geeyay cisbitaalada Madiina iyo deegaano kale waa Maxamed Nuur Maxamed oo loo garan og yahay idaacadda wareegta waxa uu caan ku yahay matalida codadka siyaasiyiinta iyo wariyaasha sidoo kale waa wariyo wareega oo dhacdooyinka cajiibka ah iyo warbixinada jaceelka la wadaaga bulshada iyagoo daabacan Xaaji Muuse Balkawar abaartooda u sheegaya wasiir marrab wasiir ku xogaana marrab xaaraanay ka tahay hay'ad ma taqaana ma aniga lagu qasbi kara ka war hadii xilka laga qaado hadda wax laga qaado jawharo 9 kiiloomitir iska dhaafay bay dhabo 200 xaga jare hadda wax walba waa isbedeleen shaqaduna ma aha tii shalay waxaana uu hadda ku shaqaystaa miisaan qofkii cabirkiisa ogaada uu bixinayo 1,000 oo shilinka Soomaaliga ah 60 waa taagay anikaas waa 60 buura ah waa la sheegay waxaan bilaabay miisaanka dhulka dhiga markii uu lagu istaagay aan bilaabay mar qof waxaan leeyahay waa ku qiyaasa qof 50 kiilo markuu yahay waa qaabkiisa dareemay waxa leedahay 50 ata waa kala 50 kiilo noqon mar 45 noqon lacag kama qaadan laakiin markuu 50 noqdo qofka 2,000 isiina waa ka qaadan shaqadii hore ee Maxamed Nuur dad badan ayaa jeclaa balse waxaa jira sabab ku kaliftay inuu joojiyo bal haynala wadaago sababtaas qaybta hore waxa ku qoran oo kaliya ardada jaamacadda dawladda kuma beeri karto cid soo saarta ma ogeen waa qabtay waxaan isla warkaan ardada jaamacadda dawladda ku beerina lagu hayaa wax soo saaran ma taqaanid bal ardada ka gad lacag ku heli adiga gado ha baqin wariya tahay ana sidii barnaamijka program lacag ina hela igu xirmo mugda dawladda ku xiri doonto ma isdheyn baan marka warqadii 100 xaba aan la iskay u daabacday 100 xaba ka dhigay lacag ku raadiya maaga 2,000 ku heli isdhahay waa daadi maqribka waxa soo wacay saldhiga booliska Madiina ana nan dakana iyo wax qaba ma haymoogto warqada waa igad mooyse khalaas waa iska daadiile dawladda ugu badan lahay al-shabaab ma ka warqabo saldhiga tagay kii daabacad waa la sii daayay wuxuu iska dhiibay alashan 3 sano oo gatay dhaqaalo iska dhiibay waxa la adiga maadaama warqada aad daabacad oo qaldantay lacag iska bixinay nimanka ayaga al-shabaab adiga dambi ma leeyahay waayahay awalna waxa la dhahay al-shabaab tahay lacag iska dhiibay iska baxal adiga dambi ma leeyahay aniga iyo kii kale wiil kale oo dhalinyarada labadeen waa nala qabtay 3 sano 2017 bisha la xiray waxa la soo daayay 2020 bishii 1 Janaayo haddana Febraayo anoo maraayo wadada ma taqaana madaxtooyada oo iska ag maraayo maxkamadda la geeyay ninka waxa soo qabteen hal cadeen dambi keena qodobka kale maxay kugu haystaan oo dhan nimanka nabad sugidda ku soo qabatay waxay ugu haystaan walaalow aniga wadada la maray dhaba leeysiyaad ku hor lagu xiray aan la igu xiray haddana meeqa bariyaal ugu hayo dhan 6 bilaa hadaan wax dhici kara maano ninka maxkamadda $2 ii tuur asoo bajaaj ku raac waa laga qaldan yahay raalaha 100% raalaha علشان warqadii waxaan iska dhaafay balana waxaan ka qaaday maxkamadda gobolka Banaadir iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee militariga Soomaaliya balan ka qaaday waxa dhan mar walba in lagu dhibaatay oo warqado ninkan wada warqado saan yeel lagu dhaho waa laga fiican yahay nan raga inaan noqoto oo shaqo kale ay raadsato aan ka rabna kuma dhibaateyneen 3 sano soo martay dhibaato kale inay ku gaarto ma rabno nin Soomaali muwaadin ah tahay in ka badan 3 sano oo xabsi ah oo uu soo qaatay idaacadda wareegta waxa uu ila wadaagay nolosha xabsiga iyo qisooyinka ku duugan oo albaabka laga geliyo xabsiga horta markuu warso xornimadaada waa laga qaaday waxa lagu gelinaa qol ay ku jiraan 70 qofood oo dhalinyaro kala duwan oo mid mashiidi ah mid maarad tuug ah mid markaas ciidan dad xabad ku furay ah mid markaas حتى حبس waxa kula kulmanin sixir yaqaan oo jini la shaqeey aan kula kulma xabsi wuxuu ku leeyahay waxa kuma ku leeyahay hadoo ku dhalo waxa kuma lagu maxkumay ana ma weydiin su'aal laakiin dad badan oo weydiiya jira oo u jawaabay oo si toos ugu jawaabay lacag ka qaadaha halka mar wuxuu ka qaadana $50 $20 allo tuura ehelkaaga waa lagu sheegaa wax lagu dhahay maxkamadda waxa ku dhayso maxkamaddu ina sar caadina ma lagu xukumayo
wuxuu usoo galaba xabsiga inuu ka shaqaysto oo usoo galay boolaboola la socoto boolaboolada waa dhimatay oo biibayso meel tagoota waa la tegi waa dhimatay boolaboola markii la xiray dhimatay dhacdo la yaab leh oo ku arkay meesha kamid tahay waxaa jiray dheef calashaan waxbaa qur-aanka ku baran kartaa fursadaa haysataa inaad qur-aanka barato haddaad aqoonin af soomaali waa ku baran kartaa ingiriiska waa lagu dhigaa dhalinyaro isxil qaantay oo maxaabiis ah oo dowladda aan wax lacag siinaa jirto oo xabsiga joogaan oo gartay in dadka inay wax baraan ana af soomaaliga xoogaa markaas galgalaba uga ahaa kadib marka meesha tagay xabsiga soomaaliya ka bartay af soomaaliya ka bartay meesha lagu baray lacag lagama qaadin af soomaaliga qaabka loo hadlaan bartay haddii tusaale lagu qabto oo lagu dambigaasaa gashaan waa lagu dhaho qaabka loogu jawaabaya waa barta qofka calashaan taalantigaas waa soo maray waa baranay asagana baa qorta cudurro badana xabsiga kala kulmee laguma ogola xabsiga haddii cudurka ugu daran kugu dhaco in inta lagaa baxsho isbitaal lagu geeyo laguma ogola dhakhtarka inta la waco ku imaado meesha kugu daaweeyo waa lagu ogolya ma fahan xabsiga qaabkaas dhibaatadaas la soo maraa habeenka cambuulaa lagu siinaa 2 qaandoo cambuulaa lagu siinayaa subax waxaa lagu siinaya jabrooti iyo koob shaax dadweynaha Soomaaliyeed horta waa mahadsan marka 100% raasumaal TV-na dadka daawanay waxaa leeyahay horta nin caana iyo waxay kala tahay nin caan ahayn dadweynahana xilli la sira ma joogaan dadweynaha Soomaaliyeed horta marka aniga la xiray kulligood bana loo sheegay dadka laba nooc ay noqdeen marka dad warka aaminay iyo dad aaminay dadka aaminay waxa uu arkay macnaha waxay inay yihiin dad aqoon u lahayn idaacadda wareegta ama dad maskaxdooda isku filnaan waxa la rabaa qofka markaad aaminayso in waxa laga sheegay ay sax yihiin marka aaminayso waxa la rabaa koor inaad qofka asaga waraysato oo dhaadani wax maxaa ka jiro ya ra'yigiisa aa weydiisa bal horta qofka ma ku qanacsan yahay waxa lagu tilmaamayo horta ya waxaas ka waran bal horta noocaas ma ku qanacsan tahay qolad hebel ma ku qanacsan tahay su'aal weydiyo waxa laga sheegay markuu dhawaa ku qanacsanahay qoladaas waxa laga sheegay waa sax haddii ku dhaw kuma qanacsanin waa been aniga hadda dawladda iyo al-shabaab labadooda dhinacaan iyo dhinacaan haday taagan yihiin waa dhaxmara ninka kuma leexay ninkan ku leexba taas waxa cadeen kuugu tahay in idaacadda wareegto oo cidna la jirin waxa aad uga xumaa oo aad iyo aad 100% ka xumaa kuwa website-yada qaarkood ka shaqeeya oo si qaldan u galiyo magaalada warbeen abuur waxba ka jira laakiin maanta warkaas wuu cadaaday oo raasumaal TV hadda dadweynaha Soomaaliyeed u taagan inuu bulshada u sheego xaqiiqada dhabta warkii maalinta idaacadda wareegta laga baahiyay beeno ah si walba uu idaacadda wareegta uu shaqadiisa u bedelo duruufo jira awgeed maxamed waxa uu sii lahaan doonaa hibadiisa uu ku matalayo codadka siyaasiyiinta wariyaasha caanka ah ku darso xirfadaas si uu uga haro masalana mar haddii qofkii arkaba uu codsanayo hibadiisa bedelidda codadka dadka caanka ah ee siyaasadda iyo warbaahinta ku jira haatan waxaa ku dari doonaa codka Aamina Muuse Weliye oo gabadha BBC-da ka shaqayn jirtay in muddo ah codkeeda ayaa matali doona wararka laga helaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dagaal uu ka dhacay kaasoo u dhaxeeya ciidamo ka tirsan dawladda iyo ciidamo ka soo horjeeda oo al-shabaab dagaalkan ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan maxamed yaxya jinow raasumaal TV muqdisho